الله ونحرسته وحا maanta deeq lacageed la gaarsiiyay heladii ay ka baxeen laba qof oo u geeriyooday abaarta xoogan ee ka jirta dhulka buuraha iyo xeebaha ee goboladan Awdal iyo Salad gaar ahaan deegaanka gargaara ee hoostagta degmada Lugahaya ee gobolka Awdal waxaana deeqdan lacageed soo direen qaar ka mid ah jaaliyada haweenka ee ku dhaqan dalka Ingiriiska kana soo jeeda gobolada Awdal Salad iyo Gabiley kuwaas oo ka danqaday abaarta xoogan ee heesta dadka deegaankaasi gaar ahaan heladii ay ka baxeen labadan qof oo abaartan u deeqdan waxa lagu soo hagaajiyay Xaaji Cabduqaadir Aadan Nuur oo ah isku xiraha qurba joogta ee dadka gudaha ku dhaqan ee goboladan Awdal iyo Salal waxaana goobjoog ka ahaa Mahdi Aadan Riiraash oo ka tirsan ururka samafalka Tawfiiq waxayna ka warameen cadada deeqdan iyo cidda ay maanta guddoonsiiyeen hablaha runtii degan wadanka UK maanta Luton oo habla aad u firfircoon oo runtii ka qiirooday markay arkeen abaaraha ka dhacay maaratay ceebta gaar ahaan gargaaro bari oo ku dhinteen laba qof ruux nin ah iyo haweeney ay ku dhinteen runtii inay si degdeg uga soo jawaabeen oo soo direen lacag $500 ay raaheen gaarsii dadka maarag geeridu ku dhacday ee heladooda ee abaartu saameysay runtii hablahan waxa cusubtaan badan inay agoomaha boorama inay biyaha ka bixiyaan bil kasta inay lacag toosatan lacag biye agoomaha boorama kaalma isticmaalaan hablahaasi inay xil saareen bil kasta soo direen muddo imka dhowr sano gaarisa ay runtii lacagtaas soo diraan oo hablo u heelan naxariis badan waxaan leeyahay walaalahay oo kaga daba dagay sida hablahaas oo kale haddana waxaan helaa $500 ay soo direen $500 baan guddoonsiinayna injineer Bilal iyo oday ka mid ah dadkii Ibrahim Badeed waxaan u mahadnaqayaa gabdhaha walaalaheena ee reer Luton ee dadka walaalahaya ee muxuu ahaa dhibaatada gaartay ku soo damqaday rasuulkeena waa amray mar irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa oo kama qaal alayhi salaatu wassalaam naxariistu waxay ku jirtaa si ummaddu isugu naxariisto ilaahayna uu naxariistaa waana imtixaan ilaahay nagu imtixaamayo ilaahay ma waayo qof kasta inuu halkiisa ku dhalbiyo tayada geeridu heshay ee gargaara joogta siday u gargaareen Allah ugu gargaaro halkani maxaa helay taxsuulo darina qoysaska iyo qaraabada ay ku geeriyeen dadkaas walaalahaya waxa kale oo ballaaran soo jeedinna hablahaasi Luton ee soo xasuustay walaalahoogaas insha Allah waxaan leenahay maanta qiyaamaha miisaan xasanaadka ay nigu Fataax Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorama.